بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ay bishii July tahay 28 sanadkuna uu yahay 2026 waxaan joognaa xaruntii iyo caasimadii dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb anigoo ah Cabdikariin Axmed Xasan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo xubno gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan xubno fara badan oo guddiga ka tirsan waxaanu maanta ku toban joognay magaalada Dhuusamareeb oo aanu ka wadnay dardargelinta hawlaha doorashooyinka soo socda oo maalinta Khamiista ka dhici doona deegaanka dowlad goboleedka Galmudug doorashadaas oo ah doorasho isku sidkan oo golaha wakiilada iyo golaha deegaanka insha Allah taala war-saxaafadeed iyadoo dadweynaha dowlad goboleedka Galmudug isu diyaarinayaan inuu maalinta Khamiista ah ee bishii July ee tahay 30 sanadku uu yahay 2026 u dareeraan goobaha codbixinta guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimuhu wuxuu u mahad celinayaa dhammaan muwaadiniinta reer Galmudug shaqaalaha ka howlgali doona goobaha doorashada ururada siyaasadda iyo murashaxiintooda ururada bulshada rayidka hay'adaha amniga warbaahinta iyo dhammaan daneeyayaasha kaalintooda ku aadan diyaarinta doorashooyinka doorashada maalinta Khamiista ah waa marxalad muhiim u ah horumarka iyo dimuqraadiyadda Galmudug guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee sohdimuhu wuxuu dhammaystiray dhammaan diyaargarowgii lagama maarmaanka ahaa si loo qabto doorasho nabdoon hufan daahfuran lagu kalsoonaan karo shaqaalaha doorashada iyo agabka doorashada ayaa la geeyay goobihii loogu talagalay waxaana dhammaan kooxaha howlgalku ee guddigu u diyaar u yihiin inay xaqiijiyaan in codbixintu u dhacdo si habsami leh insha Allah taala guddigu waxa ugu baaqayaa dhammaan codbixiyaasha isdiiwaan geliyay inay si buuxda uga qayb qaataan doorashada si nabad ahna u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah sidoo kale codbixiyaasha waxaa lagu boorinayaa inay soo qaataan kaararkooda codbixiyaha ama shahaadada ku-meel gaarka ah ee diiwaangelinta oo looga baahan yahay ayna raacaan tilmaamaha shaqaalaha doorashada si loo ilaaliyo nidaamka iyo habsami socodka doorashada bismillaahi kariim fiiro gaar ah muwaadiniinta haysta shahaadada ku-meel gaarka ah ee diiwaangelinta ee raba inay codeeyaan waxaa shahaadada looga reebi doonaa goobta codbixinta sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa muwaadiniintu inay howlwadeennada goobaha doorashada u fududeeyaan gudashada waajibaadkooda sharciga ah taas macnaheedu waxay tahay qofkii aan kaarka laftaa haysan ee haysta shahaadada ku-meel gaarka ah wuxuu xaq u leeyahay inuu codeeyo oo u yimaado subaxa codeynta goobtii loogu talagalay inuu yimaado isla markaasna marka uu codeeyo shahaadada ma qaadan doono waa laga reebi doonaa insha Allah taala awaamirta noocaas oo kale inuu u hoggaansamo oo aqbalaan muhiima insha Allah ururada siyaasadda waxaa lagu wargelinayaa inay hal wakiil oo aan ahayn murashax uu ururkiiba soo dirsado goobta codbixinta isla markaana aan la ogolaan doonin cid kale oo ka socoto urur siyaasadeed inay tagaan ama booqdaan goobaha codbixinta sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa ururada siyaasadda in maanta oo talaado ah ay ku eg tahay ololaha doorashada lagana bilaabo maalinta berri ah oo Arbaco ah waxaa mamnuuc ah wax ololo ah in la sameeyo waana in dhammaan la fujiyaa calaamadaha ololaha in lagu xardho gaadiidka iyo goobaha kale ee dadweynaha taas macnaheedu waxa weeye maanta ayaa u dambaysa ololaha doorashada ururku waxa laga rabaa inuu isku diyaariyo sidii uu maalinka Khamiista u imaan lahaa goobaha doorashada dadkiisa uu keenay lahaa bismillaahi kariim guddigu wuxuu sidoo kale ugu baaqayaa warbaahinta tabin xog sax ah dheelitiran oo mas'uuliyad ku dheehan tahay inta lagu jiro doorashada guddigu wuxuu howlgeliyay xarumaha dhexe ee howlgalka iyo warbixinada doorashada si toos ah loogala socon doono taasoo si joogta warbaahinta iyo guud ahaan daneeyaasha lagula wadaagi doono warbixino joogta ah waxaan kideed gareynay situation room loogu talagalay dadka oo dhan in lagala socdo waxa lagu akhbaaraha oo jiro dhan oo rabnaa dadka inaan toos ugu tabin maalinka ee Khamiista insha Allah taala hay'adaha amnigu waxa ay ka amar qaataan si dhowna ula shaqeynayaan guddiga si loo xaqiijiyo amniga codbixiyaasha shaqaalaha doorashada iyo kormeerayaasha iyo dhammaan daneeyayaasha ciidamada booliska ayaa iska leh ilaalinta sugidda iyo xasiloonida xarumaha goobaha doorashada lamana ogola in ciidan kale ay ka socdo hay'adaha amniga ay ka howlgalaan xarumaha goobaha codbixinta sidoo doorashada amnigeeda waxaa mas'uul ka ah maalinka doorashada ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo guddiga doorashada waxaa laga rabaa bilayska ayaa waxay yihiin hay'adda rasmiga ah ee amniga goobta doorashada mas'uulka ka ah oo ah inay nagala shaqeysaan hay'adaha kale amnigooda kale qabsanayaan laakiin goobta codbixinta ama saajada ama polling stationska waxaa imaan kara oo kaliya
askari بليس oo dharka بليس ka labis insha Allah taala cid kasta oo ku kacda isku day lagu arqaladeynayo geedi socodka doorashada ama lagu faragelinayo codbixinta waxa laga qaadi doonaa tallaabo ku haboon si sharci waafaqsan guddigu wuxuu mar kale xaqiijinayaa sida ay uga go'an tahay dhexdhexaadnimo hufnaan daafurnaan ilaalinta hufnaanta doorashada laga bilaabo codbixinta tirinta codadka isugeynta natiijooyinka ilaa ku dhawaaqista natiijada ugu dambaysta ee rasmiga ah mustaqbalka dowlad wanaagga galmudug wuxuu ku xiran yahay sida ay muwaadiniinta galmudug uga go'an tahay ka qaybgalka doorashada ay ku dooranayaan si xor ah hogaamiyaashooda heer degmo iyo heer dowlad goboleed ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadweynaha iyo daneeyaasha doorashooyinka ee galmudug inay si wadajir u xaqiijino in doorashada maalinta khamiista ah ee nagu soo fool leh dhici doonta inay noqoto mid nabdoon xor ah cadaalad ah hufan isla markaana si dhab ah uga turjumaysa rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.